الشيخ مسجين حسن أيان لأوجوغ دلك إسويدن أيا شيغي إن حديثتي وسوقات الشيخ أمال الآن لبينين كنا قارفود هصي الشيخ وحا وشيغي إن حديثتي بدنكود أيسان عدين خط التليفون في إسويدن مرا كل حرير أيا شيخ ويديي دليلها وهيو بعددا أدلة عدبا النبي عليه الصلاة والسلام كتبت مركا شيغا هي وحيالها الضغاء قاية وحوناي إني حرامي أدلة صحة كمية حديث بخاري يا مسلم يا أصحاب السنن أي وريين وصحابي اللي هذا حديث على بقى يكوريين أيها واحد صحابي يسويري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ووحي رجع صحابي يكوريين إلهي رسول في سجنه غيبي شيء كسته معله ودقاقة كمية إن الله عنا النبي غيبي سيرو كله إمامك مسلم اللي هذا أبي هريرة وكوريه أبو هريرة إنه يري النبي عليه الصلاة والسلام ويري كل ذي ناب من السباع فأكله حرام وحكسته معله ودقاقة كمية إن الله حرام واتها الشيخ بل waxaad ka warantaa isticmaalka hilibka waraabaha ayaa waayadan magaalada Kismaayo ku soo badatay waa anagii culimo ka wareysanay adinku waxaad u tihiin jawaab arintaasi bal waxaad ka warantaa dhurwaaga asaga ma ku jira waxyaabaha la nahiyay ama la diiday cunistiisa shayga horta yani babaca lagu magacaabo marka hore waxaan isticmaalaynaa lafdiga nabiga xadiiskiisa ku yimid nabigu lafdigu isticmaalo waxa weeye waa babacda nabigu isticmaalo nabigu ma isticmaalinin magaca la yiraahdo dulwaa ama waraaba la yiraahdo waanu naqaano marka shayga hadda babaca la yiraahdo inkastoo markii la sawiro oo soo bandhigo muuqaalkiisu waxa uu yahay muuqaalka shayga kan waraabaha ama dulwaaga annaga waanu naqaano marka dadka yani oranahaya babacu marka waa banaan yahay kelimadaas yani xayawaankaas oo babaca la yiraahdo qolooyinkii fuqahada ahaa marka way isku khilaafeen khilaafkoodaasina wuxuu ku salaysan yahay xayawaankaasi waxa uu yahay oo xayawaankaasi ma dugaag uu ka mid yahay mase dugaaga ka mid ma aha intaanan marka macnaha u gudbinin xadiidka yani jaabir ibnu cabdillaahi oo imaamu shaafici uu wariyey waxaa kaloo xadiidkaa warinaya asxaabu sunankuna waa ay warinaya oo markii jaabir ibnu cabdillaahi nin la yidhaahdo ibnu abi camaar uu weydiiyo uu yidhi babo yani ma ugaarba markaa wuxuu yidhi waa nacam ma la cunahaya waa nacam ma nabiga miyaad ka maqashay ha nabiga ayaan ka maqlay marka imaamu shaafici wuxuu ka mid yahay iyo madhabka xanaabilada laftigeeda iyo madhabka xataa imaamu maalik inkastoo asagu wax kaloo ka caamsan uu qabo intaasoo dhan waxay leeyihiin bahalkaa babuca lagu magacaaba wuu banaan yahay laakiin ha yidhaahdeen wuu banaan yahay babucaas marka yani ay sheegayaan muxuu yahay babucaas xalaasha yani lagu sheegaya inuu yahay mid aan awood lahayn oo wuxuu weeraro aan la arag yani babuca nicigiisu waa tabar daran yahay laa tataqawaa walaa taciishu bihi marka yani ma xoogna male oo ku xoogoobi mayso mana ku noolaanayso oo ma aha wax yani ay xayawaan ku weerari karto oo marka ay wax ku cuni karto wahuwa min axmadil xayawaani wuxuuna ka mid yahay noolaha midka ugu boqonsan buu ka mid yahay liannahu yatanaawamu xataa yusaada wuxuu yidhi waa ishisheexiyaa ilaa xayawaanaadka kale ay ka ugaarsadaan xadiiskan asxaabul sunanka ay wariyeen ee jaabir uu ka hadlay ee la leeyahay waa uu banaan yahay in la cuno hilibka waraabaha waa xadiiska uu soo qaatay sheekh umal adigu maxaad dhinaca kaleeto ku diidan tahay ama aad ku bayaaninaysaa sidaad uga soo horjeedid arrintaas waxaa lagu bayaaninaya xadiidka horta si kale loogama soo horjeedo waa xadiidku inuu saxiixa kutubu way dhigaan ma garan waa tahay laakiin dadkii culummada ahaa markay ka hadleen laba macnay mareen labada macno waxa weeye culummada aragtidooda waxay isku khilaaftay horta shaygaan babca la yidhaahdaa ma dugaag ba mase dugaag ma aha ragga marka banaynayo oo waa banaan yahay oranaya oo xadiidkaa deliishanaya waxay leeyihiin dugaaga ka mid ma aha oo wax dhibaato la yidhaahda ma gaadsiiyo raggaana waxaa ka mid ah yani ibnulqayimkii haddaan kuu sheegay baa ka mid ah imaamu shaafici laftigiisi baa ka mid ah waxaa ka mid ah ibnu xajar asqalaani oo fathulbaarigiisa kusoo qaadanaya waxaa ka mid ah wadaad cusaymiin la yidhaahdo oo wadaadada hadda ay saabsadaan ka mid ah haddama waxaad leedahay dhurwaaga hilibkiisa laga bilaabay cunistiisa gobolka jubbada hoose magaalada Kismaayo waa xaraam mise waa xalaal xaraam waxaan u leeyahay bukhaari iyo muslim way ku cadeeyeen nabigu inuu reebay shay kastoo micile oo dugaaga ka mid ah oo wax weeraraa inuu xaraam yahay babucaan marka lasoo qaaday culumadii waa xalaal yirina waxay ayagu qabaan in shaygaa babca la yahay xayawaan aan dugaaga ka mid ahayn oo aan wax weerarin haddana annagu waxaan ognahay dhurwaagaan la yaqaano oo Soomaaliya iyo Afrika iyo meelo badan ka jiraay waxa weeye dadkiibuu cunaa wuxuu cunaa muxuu ahaa ugaadhi oo dhan buu cunaa biciidkiibuu cunaa wuxuu cunaa dameerfalowgii xataa wax kale waa iska dhaafo wuxuu isku dayaa inuu libaaxa weeraro markuu koox dad uu yahay
oo uu ka kacsado waqtiga markaa uu cunayo. sheekh Muxudiin Xasan ayaa la jooga dalka Sweden kana jawaabaya xadiis uu shalay ku xalaaliyay Sheekh Umal oo la hadlay VOA-da banayna cunista hilibka waraabaha.